سلام الله عليكم مركله كلنتي wanaagsan shabakada Galen Media daawanaysan magaciiguna waa Isman Fantastic falanqeyn kale ayaan maanta ku dul istaagi doonaa oo ku aadan suuragal ma noqon kartaa in xiisada u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ay degto kadib booqashada wasiirkii arrimaha dibadda Mareykanka uu ku tagay magaalada Beijing ee dalkaasi Shiinaha haddii ay tahay markii kugu horeysay waad soo booqatay janalka Galen Media falan subscribe ونسي شرقري أصحاب هذا وبوقشدي سدحاد أو سراكيل سر وكتر سنة مريكان كاي كتجيان مقالة بيجين إسلا السنة كان لابد يكون أفري لباتنكا وزير كلمة دي بدا ودن كاسين مريكان كوحا كلن ولقاتي مدحونها ودن كاشينها وجدك كلن كا يجودهان ود هذا الكوبا وحاي سلك كوهين سيدي لوهل لها فرصة إسكاشي وأيشان لبداسي ودن madaxweynaha waddankaasi Shiinaha waxa uu yiri labada waddan ee ugu weyn dhanka dhaqaalaha dunida waa muhiim inay noqdaan shuraako halka ay noqon lahaayeen kuwa mucaarad isku ah haddaba falanqeynteeda su'aasha ugu muhiimsan ee aan isku weydiinayno waxa ay tahay booqashada wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka uu ku tagay waddanka Shiinaha isla markaana kulanka uu kula qaatay madaxweynaha waddanka Shiinaha ma noqon doontaa mid markaasi yaraysa xiisada u dhaxaysa labadaasi waddan wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka Mr. Bill Clinton-kiisa waxa uu yiri waxa qasab ah in laga fogaado sii horinta guud ahaan xiisada bariga dhexe iyadoo Shiinaha markaasi la adeegsanayo inkastoo umuurtaasi aanun ku dheeraan waxa uu yiri sidoo kale waa in xad loo yeelaa loolanka guud ahaan ka jira qaaradda Aasiya oo ula jeedo dhanka iyo waqooyiga Korea iyo koonfurta Korea guud ahaan haddaba su'aasha ah suuragal ma noqon kartaa in xasilooni ay keento booqashadan wasiirka arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Anthony uu ku tagay Beijing Galen Media falanqeyn iyo baaritaan dheer kadib waxa u soo baxaysa in yar ay noqon karto ama xoogaa muxadada mid guul keenta laakiin loolanka iyo xiisadaha ka jira waddanka Ruushka iyo Ukraine caawinta Ruushka ee dalkaasi Iran ee ku aadan dhanka tiknoolajiyadda ayaa keenaysa in gabi ahaanba heshiis waliba oo dhex mara Mareykanka iyo Shiinaha ay noqdaan kuwa bacaad lagu lisay waa wax cad in labada waddan waa Mareykanka iyo Shiinaha ay doonayaan in dhinacyo gaar ah marka ay iskaashi ka yeeshaan oo ma noqonayo kuwa dhaadheer oo lagu talax tagayo waxaana cad in labada waddan uu u dhaxeeyo loolan dhanka tiknoolajiyadda ah Shiinaha dhankooda waxay aad ugu walaacsan yihiin oo ay ka soo horjeedaan marar badanna dood ay ka keeneen waa cadaadiska Mareykanka iyo xayiraadaha uu saarayo shirkadaha yaryar ee dalkaasi Shiinaha ee dhanka tiknoolajiyadda badeecadeeda maxaa yeelay waxaa Mareykanka uu ka soo horjeedaa xiriirka shirkadahaasi Shiinaha ay la sameynayaan dhowr waddan oo ay ka mid yihiin sida Iran Venezuela oo dhanka gaaska iyo arrimo badan ay ka caawinayaan haddaba Shiinaha markaanu eegno cadaadiskaas iyo xayiraadaha Mareykanka uu saarayo waxa ay keenaysaa in dhankooda ay gaashaanka u daruuraan oo ay sii laba jibaaraan xiriirka ay la leeyihiin dalkaasi Ruushka umurahan oo idil iyo kulamadan waxa ay ku soo beegmayaan xilli Mareykanka ay marar badan tilmaameen in Shiinaha uu xitaa uu ka caawiyay waddankaasi Ruushka dhanka hubka dagaalka ay kula jiraan waddankaasi Ukraine oo muddo dhowr sano haatan ka soconaya labadaasi waddan sidaa oo ay tahay kulamadan soo noqnoqday waxaa muuqanaysa in dhanka Mareykanka ay ka imaanayaan oo iyaga ayaa kuwa si weyn u daneynaya in xoogaa xiriir ay la sameeyaan waddankaasi Shiinaha iyaga oo rajahan kale inay xadidaan isla markaana yareeyaan caawinta waddankaasi Shiinaha uu siinayo waddamo ay ka soo horjeedaan Mareykanka sida Iran iyo Venezuela haddaba ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynaynaa si heshiisyada Mareykanka iskaashi ay la yeeshaan Shiinaha uu u noqdo mid miro dhala waxaa qasab ah in Mareykanka ay ka fogaadaan xayiraado dhowr ah oo ay saareen shirkadaha yaryar ee waddankaasi Shiinaha haddaba daawade
guud ahaan waxaan dhihi karaa kulamadan haatan soconaya iyo xiisadaha mantiqada bariga dhexe ka taagan kulamadan waa kuwo iska caadi ah heshiisyadana ma noqon doonaan kuwo guulaysta commentiga tag fikradaada dhiibo adigana ma kula tahay in kulamada iyo booqashada u dambeysay wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi maraykanka uu ku tagay shiinaha inay noqon doonto mid xasilisa oo yareysa xiisada u dhexaysa washington iyo beijing waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib ugu kulmi doono xubin noocan oo la mid ah waa cismaan fantastic daawadayaal waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu